Ash Brothers Home Healthcare, Mr. Abdulsaq Ahmed. xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada Soomaalida ee gobolkan Ohio iyo waliba wakiilo ka kala socday maamulka gobolka kan degmada iyo wakiilo heer federaal ah oo ay soo diyaarisay rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa lagu qabtay magaalada Columbus, Ohio. rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa xafladan abaalmarino ku siinaysay ganacsato Soomaaliyeed oo kaalimaha horey ka galay ganacsiga Soomaalida ee gobolkan Ohio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaa magacayga waxaa la yiraahdaa Shaafi Ahmed. Waxaan ahay madaxweynaha Somali American Chamber of Commerce. Maanta waxay inoo jirtay xaflad aad u qaali ah oo ay ka soo qayb galeen وفود آد وحوق بدن وحفيز كميركا حفيز كونغرسمان كاري يدمان سكرتير اوف ستيت ليفل يو سيتي ليفل يو فدرال ليفل كلها حفلة داس او اي سوق مقابسي سومالي امريكان تشامبر اوف كومرس حفلة داس او او تلقلين ان اي اسكاشتدا سوماليدا ganacsiga ay network ku sameeyaan oo isku bartaan si ay u helaan waxyaalaha ay u baahan yihiin xafladaas oo ahayd xaflad mataqaanaa isbarasho ah dadka iyo xuquuqda ay ku leeyihiin magaalada ay degan yihiin xafladaas oo si wanaagsan u dhacday maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo siiyay in aan si sharaf leh oo ay uga soo qayb galaan dad fara badan oo Soomaali ah si aan oola qaybsano ayaheena dambe. My name is Muhammad Ali. I'm the founder and CEO of Ohio Transit Company. We were invited to this beautiful dinner from the Ohio Congress of Chambers. I want to thank them for a beautiful dinner, and I really appreciate what they're doing for the community, and we will effortlessly support them in any kind of way they need. And thank you very much for a beautiful night. To my friends at the Somali American Chamber of Commerce, hello. It's Frank LaRose, your Ohio Secretary of State, and I just wanted to send you a quick message to say thank you. Just like successive generations of great American immigrant families have done, you all are contributing richly to the culture, to the business life of our state and our nation. This is the story of my family 90 years ago when my great-grandfather immigrated from Italy and started a business. And this is the story that you all are writing for yourselves and for your future generations right now. What you all have done is truly, really remarkable. You're giving back so much culturally to this state. And I know that there are many great things to come. I look forward to all of the things that you all are going to do and have been doing as entrepreneurs. I say thank you for that. Good evening, everyone. I'm Congressman Mike Carey. It's an honor to serve as your representative in Washington, D.C., and I am so proud of the contributions that the Somali American businesses are making to Central Ohio. With 10,000 members, your organization has a major impact in the Columbus region. Even so, I know the struggles of starting and maintaining a successful business, and that's why I want my office to be a resource to you, whether that is connecting you with federal agencies or assisting with grant applications. If you are a constituent of the 15th Congressional District, my office is here to help. I currently have 3 district offices, one in Columbus, one in Lancaster, and Wilmington. If my staff can assist you, please reach out. You can find our contact information at carey.house.gov. Thank you for giving me the opportunity to speak with you this evening. rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa dadaal dheer ku bixinaysa sidii loo heli lahaa ganacsato Soomaaliyeed oo gaara guulo wax ku ool ah kuwa oo la jaanqaadi kara ganacsiga cusub ee dunida haatan ka jiro. Shaaciya TV, Columbus, Ohio.